asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhowaada saaxiibayaal, fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir lagana noo saar. maanta waxaa muuqaalkeena marti nooga ah Nasriin, waxayna nooga sheekeyn doontaa qisadeeda. sidaan ayayna ku bilowday. hallow, magacaygu waa Nasriin, waxaan jiraa 16 sano. waxaana kuu sheegi doonaa sheekadayda tiktok iyo sida ay noloshayda u barbarisay. waxaan kusoo dhex koray qoys wanaagsan oo muxaafidiin ah, waxaana laygu soo barbaariyey barbaarin diimeed. waalidkaygu waxay ahaayeen kuwo aad wanaagsan, waxayna rabeen carruurtooda inay noqdaan iyagoo kale. waxaan ahayn aniga, walaashayda iga yar Yaasmiin iyo walaalkay iga weyn Yaasiin. Yaasiin waxa uu ahaa mid edeb leh oo aad wanaagsan, waxbarashadiisana ku fiican. laakiin si lama filaan ayuu ugu soo laabtay guriga. rabshado fara badan ayuu sameeyey, kadibna waxa uu iska daayey waxbarashada. aabbahay waxa uu ogaaday inuu samaystay saaxiibo xunxun. marar badan ayuuna uga digay, laakiin Yaasiin dheg jala kumuusa siinin. micnaha ma uusan maqlin waanada aabe. wuxuu noqday nin dhalinyaro ah oo fashilmay, kana ganacsada daroogada ayada oo aan aabba ogeyn. waxa uu wakhtigiisoo dhan ku qaadan jiray ciyaar iyo malayacni. dhanka Yaasmiin, iyadoo gabadha ugu yar qoyska, waxayna ahayd mid asluub wanaagsan, weliba waxbarashadeeda aada ugu fiican. haddana naftayda ayaan kaaga waramayaa. markaan ahaa 14 sano, waxaan ahaa mid ku wanaagsan waxbarashadeeda. ahmiyadna ma aanan siin jirin waxaan ka ahayn waxbarashadeeda iyo raaligelinta rabbigayga, kadibna waalidkayga. laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaan soo agmaray koox asxaabtayda ka mid ah. waxayna ahaayeen kuwo si hoose u qosleeyo, welibana isoo eegayo. midkoodna wuxuu gacanta ku hayay shay. waxaan ku yidhi, maxaad iga fiirinaysaan oo ad ii xamanaysaan? mid ka mid a ayaa igu tiri, tani adiga kuma qusayso, waxaad tahay arday sharaf leh. mid kale ayaa tidhi, runtii tani waa wax annagana quseeyo, sababto ah waxaan nahay koox fashilantay oo waxdana aan ka lahayn waxbarashada. kadibna waxay bilaabeen qosol. markaas ayuu sii siyaaday xiisahayga. waxaanan ku yidhi, ii sheega, waxaan rabaa inaan arko waxaad ka qoslaysaan. mid ka mid a gabdhihii oo lagu magacaabi jiray Fadwa ayaa soo bixisay waxay qarinaysay. waxaan ku yidhi, ma waxaad ku qoslayseen inaad haysataan mobil? Fadwa ayaa igu tiri, waxaan ka soo xaday hooyaday si aan u tuso saaxiibaday muuqaalada aan duubay. fiiri Nasriini waa application cusub, waxaa la soo geliyaa muuqaalada qoobka ciyaarka ah iyo kuwo kaloo badan. waxaan ku yidhi, maxay tahay xiisaha ay leedahay markaan aragno hablaha sidan u ciyaaraya? saaxiibadii koowaad ayaa igu tiri, markii hore ayaan kuu sheegay aan ku yidhi ha fiirinin, maxaa yeelay wax ahmiyad ah kuma lahan adiga. saaxiibadii labaad ayaa igu tiri, ma ogid miya in muuqaaladani ay ka helayaan dadku macaash aad u fara badan? tiktokna ay noqotay meel aad loo jecel yahay. waxaan dareemay xiise aad u fara badan, waxaanan ku yidhi, tiktok waa magac layaab leh, ma qoobka ciyaaroo keliya la soo geliyaa? Fadwa ayaa igu tiri, maya waxaa jiro kuwo sameeyo riwaayado iyo challenjiyo. waa barnaamij madadaalo iyo kala duwanaansho leh. waxaa la garaacay gambaleelkii iskuulka, waxaan u kala oradnay fasalka. waxaan ka fikerayay barnaamijkan, gurigeena ayaanan ku laabtay. waxaana niyadda iska yidhi, waxaa ku fiican tahay shilinka, waxaanad u isticmaali kartaa kartidaada si aad lacag u kasbato. waalidiintaaduna way kugu faani doonaan, laakiin u sheegi maayo ilaa aan guul ka gaarayo. waxaan aaday jikada, waxaana raadiyay hooyaday oo cunto diyaarinaysay. waxaana ku yidhi, hooyo mii dhiibi kartaa telefoonkaaga? waxaan rabaa inaan la xiriiro mid ka mid a asxaabtayda iskuulka, maxaa yeelay waxaan hilmaamay layli laynoo soo diray. hooyo ayaa igu tiri, qolkayga ayuu ku jiraa ee ka doono. waxaan qaatay telefoonkii hooyaday, waxaanan aaday qolkayga. waxaan soo degsaday applicationkii tiktok, waxaana furtay akoon. kadibna waxaan wacay Fadwa si ay wax badan iiga sharaxdo qaabka loo isticmaalo applicationkan. maalintii xigtay waxaan duubay muuqaal anigoo ku dayanaya atirisho Bollywood ah. kadib waxaan soo geliyey applicationkii. mararka qaar ayaan fiiriyaa akoonkaygii, laakiin wax views ah ma uusan helin. waxaan bilaabay maalin walba inaan muuqaal sameeyo. mar kasta aan dhammaysto shaqadayda, applicationka dilayda ayaan dhihi jiray oo mobilkaan ka tuuri jiray. maalin maalmaha ka mid anoo ku jira tiktok ayaan si lama filaan waxaan u riixay badhanka leefta laga furto. waxaanan qaadayay xilligaasi heese murugo badan. muuqaalka ayaa aad u faafay. waxaanan ka baqiyey markii hore waalidkaygu inay arkaan, laakiin markaan komentiyada dhiirigelinta ee quruxda badan arkay waan ka helay. maalintii xigtay waxaan helay asxaabtaydii oo isugaysa, waxayna ku faraxsan yihiin muuqaalkan soo geliyey tiktok. Fadwa ayaa igu tiri, marna ma filayn inaad noqon doonto xidigta tiktok Nasriine. saaxiibtii koowaad ayaa iyana tiri, codkaaga waa mid cajiiba, waadna iga ilmaysiisay run ahaantii markaan daawaday muuqaalkaaga. saaxiibtii labaad ayaa igu tiri, aad bay ii cajabisay, ka waran haddii aad nala samayso muuqaalo kale? aniguna waan ka helay fikradda. gurigii ayaan aaday, waxaanan bilaabay heesaha iyo bedelidda dharka. mar kastana waxaan wejigayga marinayay waxyaabaha dumarku isku qorxiyaan. waxaana muuqaalada ku duubi jiray meelo kala duwan oo guriga ka mid ah si ay muuqaalada u noqdaan kuwo soo jiidasho leh. sanad ayaa kasoo wareegtay, waxaanan ku jiraa xaaladan,
natiijooyinka waxbarashadeydana waxay bilaabeen inay hoos u dhacaan. Laakiin dhinaca kale muuqaaladeedu waxay bilaabeen inay si aad ah u faafaan. Waxaan bilaabay inaan ka helo macaash goobta, laakiin markasta uma sheegi karo waalidkayga. Lacagtaas haddii ay ogaan lahaayeen iyo muuqaaladan duuba waxay iga saari lahaayeen guriga. Maalin maalmaha ka mid ah aniga oo ku jira live, aabbahay ayaa qolka soo galay wuuna i dharbaaxay. Waxaan ku yidhi sabab aabe, wuxuuna igu yidhi adigu ma tihid gabadhayda oo aabbaha ma yihi. Sharaftaydii ayaad dhulka ku tirtirtay. Ragga suuqa ku jira ayaa ka hadlaya adiga iyo xishood la'aantaada, waxayna daawadaan muuqaaladaada adigoo heesiya oo qoobka ciyaar dheelaya. Aaway barbaarintii aan kusoo barbaariyey, miyaadan ilaahay ka baqayn markaad sidan samaynayso? Waxaan jeclaan lahaa in dhulku kala dilaaco oo ilaqo ka hor inta aanay sidaan dhicin. Waxaan ku yidhi aabbahay, aabe waan ka xumahay, keliya waxaan rabay inaan kuu soo kasbo xoogaa dhaqaale iyo lacaga. Wuxuu igu yidhi lacagtaad raadinayso waa mid aan ku waayayo sharaftayda gabar yahay tarbiyadaan lahayn. Maxaan ku samaynayaa lacag xaaraan ah? Intaas markuu dhahay aabbahay waxaa xigay dhawaqa goorada booliska iyo albaabkeenna oo loo garaacaya si xad dhaafa. Waxaan ku degdegnay labadeennuba dhankaas iyo albaabka. Aabbahay ayaana furay, kadibna waxaa ka hor imaaday askartii booliska. Waxayna ku yidhaahdeen aaway wiilkaaga Yaasiin. Aabba ayaa ku yidhi maxaa dhacay, ma dhib baa jiro? Booliiska ayaa ku yidhi waxaad ku ogaan doontaa saldhigga booliiska. Ciidankii waxay galeen qolka walaalkay, waxayna ka soo saareen boorso weyn, kadibna waxay kacaysteen walaalkay. Dhammaanteen waxaan u raacnay halkaas si aan u ogaano wax dhibku yahay. Ma qiyaasi kartaa haddaba waxa dhacay? Aabbahay ayaa ku yidhi sargaalkii ciidanka ahaa, allah ayaan kugu dhaariyey, ii sheeg waxa uu sameeyey wiilkayga Yaasiin. Sargaalkii ayaa ugu jawaabay wiilkaaga waxaa lagu eedeeyey ka ganacsiga maandooriyayaasha, laakiin wax caddayn ah oo aan ku helnay ma jirto. Taasina waa sababta nugu kaliftay inuu xor sii ahaado muddo dheer. Laakiin allah ayaa mahad iska leh. Kadibna gabadhaada waxaan haynaa caddaymo dhammaystiran. Aabba ayaa yidhi gabadhee maxayse caddayna oo ay bixisay? Wiilkaygu ma qaato daroogeyn ama muqaadiraad, mana ka ganacsado. Sargaalka ayaa ku yidhi gabadhaada Nasriin ayaa ku duubtay muuqaal TikTok, waxayna ku jirtay qolka Yaasiin. Gadaasheedana waxaa yaalay muqaadiraad iyo daroogo mamnuuc ah oo miiska lagu diyaariyey. Aniga oo argagaxsan ayaan ku qayliyey, waxaan eri kasoo lama jeedin. Qolkiisa waxaan u galay inaan muuqaalada uga dhigo kuwo kala duwan. Aabba ayaa yidhi adigu waad i fadeexaysay, mana tihid gabadhayda, ma tihid carruurtaydii aan koriyey. Intaas kadibna waa uu miyir doorsoomay. Isbitaalka ayaa noola cararnay markiiba. Nasiib darro, dhakhtarkii wuxuu yidhi waxaa si lama filaan ah u kacay cadaadiska dhiiggiisa, taas oo keentay inuu geeriyoodo. Samir iyo imaanna allah idinka siiyo. Hooyaday ayaa oohin bilowday. Yaasmiin ayaana dejisay oo ilmada ka masaxday. Markaas ayaan bilaabay inaan ka shallaayo wixii aan sameeyey. Aabbahay waxa uu dhintay isagoo aan raalli iga ahayn. Waxaan tagnay gurigii, waxaana qabanqaabinay aaskii aabbahay, kaasoo uusan walaalkay ka soo qaybgelin maadaama uu xabsi ku jiray. Markii ay dhammaatay hawshii aaska ayaan gacanta ku qaatay telefoonkayga si aan u ogaado xaddiga cayda igu dhacay. Malaayiin ayaa daawaday hadalkii aabbahay, maxaa yeelay waxaan hilmaamay inaan joojiyo baahintii tooska ahayd ama liftii aan ku jiray markii uu qolka soo galay si uu canaanto. Kadibna waxay gudbiyeen warka ah inuu dhintay aabbahay. Caanimadaydi waxay noqotay xarig qorta ii suran. Applicationka ayaa dartiis waxaan u dilay aabbahay, waxaanan u xiray walaalkay, waxaanan u baabi'iyey karaamadaydii. Sanad ayaa kasoo wareegtay dhacdadan. Hooyaday ilama hadasho, aabbahayna wuxuu ka hooseeyaa carrada. Walaalkiina waxaa lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah sababtoo ah kontrabaan badan ayay qolkiisa ka heleen. Sidii xorriyadda lahayd maana nagu socon karin dariiqa. Cayda iyo nacaybka ay dadku ii hayaan darteed. Run ahaantii TikTok ayaa burburiyey nolosheeda. Sida nolosheedana intaas ayay ku eg tahay. Ku mahadsanid saaxiib haddaaba ilaa inta nolosha gaartay. Had kadib waxaan rajeynayaa inaan kusoo gudbiyo meeshaan si lamida tan oo kale. Fadlan haddaad ka heshay qaybta faallada nabadgelyo.